munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo golaha deegaanka degmada Gurceel ayaa ka dhacday hoteelka Badar ee degmada Gurceel. Munaasabadana oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan maamulka Galmudug, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Galgaduud, odayaasha dhaqanka degmada Gurceel iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale waxaa munaasabadana goobjoog ka ahaa maamulka degmada Gurceel, waxaana ugu horeyn munaasabada daafuray gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin, asagoona sheegay in Gurceel ay gaartay halkii uu doonayay inay gaarto xilliga uu qabanayay xilka gudoomiyaha degmada Gurceel. waxaan rabaa dhammaan reer Gurceel farxadooda iyo raarayntooda iyo wanaagooda waxay ku soo dhaweynayaan si mug leh oo miisaan leh in degmada Gurceel ay yeelato golo deegaan. waxaan leenahay marka waa runtii wax muddo la wada sugayay, waxaan rabnaa inaan uga mahad celino cid walba oo kaalin ku lahayd ka shaqaynteeda masab kasta iyo mas'uuliyad kasta oo ay hayso, oo ugu horeeyo madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, oo uu ku xigo wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan bahda wasaaradda arrimaha gudaha, xubnaha golaha wasiirada, xildhibaanada iyo dhammaan reer Gurceel oo kaalin ku wada lahay in halkaan aan soo gaarno. runtii meesha aan caawa joogno runtii waxaan u soo marnay geedi dheer, juhdi badan iyo waqti badanna waa loo soo maray. waxaan filayaa hamiinkii aan meeshaan kula wareegaynay mas-uuliyadda ama xilka guddoomiyenimo, baahidii bulshada reer Gurceel ka hadlayeen waxa ugu badan ama midda ugu adagi waxay ahayd meesha aan caawa joogno inaan gaarno. waxaan haysanaa caawa Gurceel oo yeelanaysa golo deegaan oo rasmi ah. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyay daafurka dhismaha golaha deegaanka. Nabadoon Maxamuud Cabdulle Rogome iyo sidoo kale Suldaan Xasan Ciide Gale ayaa sheegeen inay wasaaradda arrimaha gudaha ku taageerayaan dhismaha golaha deegaanka ee degmada Gurceel. Gurceel nasiib badana, wasiirku waa kuma ninaa la dhihi jiray Cali Ciyaal, asagu waa Cabdiwaayeel. Gurceel nasiib badana, taariikhdu waa tuma, waa 18 bisha 11 2022. haddii si qalaad loo sheegana shoorna disha oo tadal undisha duwamile bilkiduun. Gurceel nasiib badana, ayaantuna waa sabdiyo anaaba dhashayba. waxaan leenahay soo dhowaada marti sharafka wasiirku uu weyn yahay, ama waagii hore faara interno la dhihi jiray, oo uu weyn yahay. soo dhowaada, waxaan idinku soo dhowaynaynaa weji furan, gacmo furan, qalbi furan, rabitaan, ka run sheegid. waxaad wadaan garab taagannahay, waa idin garab taagannahay. tii ruushkii maahane waa run. afkar haddii uu kaa hormaro wuu ku xaalufiyaa liir oo waxaad sheegta ma taqaanid. haddii uu kaa daba marana wuu ku ceebeeyaa oo wixii hore xumaad sheegto kaa madoobeeyaa. marka waxaan leenahay ikhyaara halkan ka hadashay. marka koowaad soo dhowaada mudane wasiir iyo tiimkaaga iyo dhammaan waan idin mahad celinaynaa socodkiina sharafta badan. ku soo dhowaada degmada Gurceel. xoogaa Gurceel maaragta waa meel aad iyo aad ay uga soo daahday xagga degmanimadu, misna golaha deegaanka maaragta aan islahayn xoogaa mar hore duqu idiin imaan doonaa. aad iyo aadan ayaantaan hadalhayntaada u haynay. ilaahay caawo ku keenay. soomaalida waxay tiraahdaa, waxaa la yidhi dad waxa u wanaagsan qofka la yidhaah waa maqan yahay ha la sugo, waa yimida noo geeya, waa yidhi ha la yeelo. ilaahay caawo noo kaa keenay. waxaan rajaynaynaa hawsha maaragtay aan aad iyo aad kuugu soo dhawaynaynaa. wixii aad u timid hawshii golihii deegaanka asagoo caawo halkan laga daafurayo, waxaad ku soo dhawaataa Gurceel oo shacabkeeda guud ahaan
dhammaan ay ka kooban yihiin adiga iyo wasaaraddaada iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug hogaamida aad iyo aad caawan kaga soo dhaweynaa gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi salaad cali iyo sidoo kale wasiirka hore ee amniga galmudug cismaan ciise nuur taardhuleelle ayaa ka hadleen munaasabadan. waxaan rabaa odayaasha oo ah hay-adda ugu sarreysa bulshada dhib badanna ka soo maray howlaha bulshada wixii aad qabanayseen wixii ugu weynaa waa midda caawa u fadhino oo ah dhismaha golaha deegaanka. dhismaha golaha deegaanka waxa nooga xiran iyo waxa ka imaanaya wax ka dhalanaya ayaa wixii wax aad u qiimo badan qof walbana ayaga deeqi doonta hadii ilaahayno. markii aniga gudoomiyaha gobolka laga doortay oo kormeerka gobolka ka bilaabay Guriceel baan ku soo qabtimay 2 sano iyo 8 bilood aan Guriceel ka maqnaa ayadoo guriyay ku yaaliin gudoomiyaha aan ka soo ahaa waxaan uga maqnaa dawladnimada qabiil diriray ma aanan ahayn wixii dhacayna waa sloogin marabina dib ugu laabto konsolka caawa meesha loo fadhiyo inuu dhismo yaa u sababa ilaahay ka sukow dhismii galmudug oo sababa haddaan galmudug la dhisi lahayn konsol caawa dhismi lahayn galmudugna waxaa dhisay ilaahay ka sukow odaasha dhaqanka. wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore iyo wasiirka qorsheynta galmudug axmed cali maxamed cantoobo ayaa odayaasha dhaqanka ka dalbaday fududeynta dhismaha golaha deegaanka ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. qodobka shanaad ee steepkii shanaad ee caawa aan taaganahay waa daahfurkii oo caawa inoo bilowday qodobada kale ee noo dhiman ilaa iyo waxa noo dhiman 7 qodob oo kale step oo la marayo 7 step oo kale oo la marayana odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya sida aad wasiirka iyo bal wafdiga meelaha la socda aad u soo dhaweyseen oo aad u ballan qaadeen in aad fududeysaan ayaa la idinka doonayaa waxaan idinka rabo iyo waxa dhimanba kaliya waxaan anigu ku darayaa hadalkayga dhaqanka odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa waxaa haray istaab yara haray shaqo yara hartay inta yara hartay waan adkeynaa in la fududeeyo si loo helo xildhibaanadii konsalka si loo helo oo aysan waqti badan iyadoo intaasi ay muujiso dhammaan sida loogu baahan yahay in la helo golihii deegaanka dhibka laga mara la cadeeyay degmo ahaan waxa dhiman wax yara dhiman inta dhiman in la fududeeyo waa si adkeena. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo ugu dambeyn soo xiray munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay sameynta golaha deegaanka. aad waxaan ugu faraxsanahay runtii odayaashu hadda markay hadlayeen waxay carabka ku adkeeyeen wax dhib ah oo aad kala kulmaysaan ma jirto dhismaha golaha deegaanka waynu ku ammaanaynaa arrintaas waxaan la rabnaana inaad ka dhabaysaan arrintaas si fiican inaad uga dhabaysaan waxayna noqon doontaa taariikhda wax gala magaaladan waxay ku jirtaa aan mareynaya waa magaalada labaad oo populationka degmooyinka ugu badan bay kamid tahay galmudug waxaana filayaa galmudug wasiiradeeda markay shirahayaan iyo markaan ka wada hadlaynaba mid ka badan iyo mid ka yarba inay Gurceel noo tahay number 1 inay noo tahay haddaad maanta ku dartaan inaad si fudud golihiinii deegaanka isagoon khilaaf iyo dhibaato iyo dib u dhac lahayn waxaad geli doontaan runtii baal dahab aad ka geli doontaan galmudug oo dhan. waxaan idin sheegayaa dadkaas dad mushaar qaadanaya maaha qof kasta oo adig iyaga ka miduna waxay matalahayaan giddigiin bay matalayaan ma jiro reerku ka soo jeedo iyo reer kale wax masaaliix oo gaar ah u soo qaban karaa haddii maskaxdeenu aad ay u furnaan lahaydna haddaad rabtaan waxaad ka dhigi lahaydeen hal qoys sababtoo ah wadadaad shaqo u dirsateen wax xuquuqana aadan siinayn sabab marka la isugu fulfulo ama la isugu dilo ma ku tahay halkaa ma ku jirto haddaan si fiican maskaxdeenu ay u furan tahay laakiin xamaasadda waxaan ka helay waxaa meeshan hadda ii muuqata in badan ugu soo noqnoqota waxaa weeye waxaan kursiga u doonayaa matalaadda si aanan beri u waayin matalaad waxaan idin sheegayaa galmudug shuruucdii doorashada way ansixisay guddiga doorashadana way ansixisay kii axsaabtana way ansixisay
sanadka bartamihiisa soo socda intaan la gaarinna waxaa suuragala golaha hadda aad doorataan oo aan sanad jirin inaanu qof iyo cod ka qaadnaa Gurceel haddii aan la idmo. Axmed Faarax Maxamed, warbaahinta SMS deegaanada Galmudug.